waxaan imid ilaahayna keenay waa xafiiska ra'iisul wasaaraha xasan khayre si qurux badan runtii waa la ii soo dhaweeyay anoo waliba xambaarsan magaca culimo u diinka Soomaaliyeed runtii waxaan ka wada hadalay waa masiirka iyo halka loo wado iyo halka la doonayo waliba in la dejiyo wadankan waa runtii waajib diini ah in culimo u diinka ay runtii ay la hadlaan oo ay u yimaadaan u naseexeeyaan madaxdooda sababtoo ah ilaahay baan runtii nagu guubaabinaya rasuulka nagu guubaabinaya islaamka nagu guubaabinaya oo dhahaya diintu waa naseexa weeyaan diintan yaa xambaarsan culimo u diinka xambaarsan maadaama culimo u diinku ay xambaarsan yihiin yay ugu naseexeynayaan waxay ugu naseexeynayaan waa culimo waa madaxda waa shacabka waa mucaaradka waa insaankan maxaa yeelay diinta waxa loo soo dejiyay waa insaanka waxaase dembi ah waxaanse ilaahay ogolayn in diintiina aad xambaarsan tahay dadkii quudan lahaa lagu quudin lahaana inay ka qatan yihiin culimada inay garab istaagaan naseexa inay ula garab istaagaan madaxdooda waa wax aad iyo aad u wanaagsan eeg xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam iskaba dhaaf dadkii muslimiinta ahaa ee uu la joogay diinta naseexadeeda wuxuu la garab istaagay gaaladii waa ku waraaqaha u qori jiray waa ku u tegi jiray waa ku saxaabadiisa intuu u diro iyagoo wufuud ah waa ku u tegi jiray oo ay u geyn jiray oo u diri jiray marka diintan waa naseexo waxaan aad iyo aad ugu talinayaa una runtii dhiirigelinaya culimo u diinka xambaarsan diintan dadka kale ee maaragtay xataa cuqaasha ah mutacalimiinta muthaqafiinta wax soo bartay cilmigoodaas ay barteen in ay la wadaagaan uguna naseexeeyaan madaxdooda si qurux badan baa runtii la ii qaabilay xaba adduunye iyo hanti adduunyana kamaanan soo raadsanin xaq ay nagu lahaayeen ayaanu runtii u gudbinay si qurux badanna maaragtay waa ay u qaateen way u baahan yihiin madaxdu waa dad runtii maaragtay adeegayaal ah waa adeegayaasha shacabka weeyaan culimo u diinkuna waa adeegayaasha shacabka weeyaan waxa marka loogu adeegayo shacabka oo ay madaxdu ugu adeegayaanna waa in runtii culimo u diinka ay zaad uga yeelaan oo ay uga dhigaan madaxdooda waxaan leeyahay culimo u diinka dal iyo dibadba jooga ha ka hakranina meel fog iyo meel dhowba uga soo naseexeeya madaxdiina runtii waxaan arkay halkanna aan ku arkay saan shalay u arkay qalbiyada wanaagsan ee Muqdisho waxaan arkay runtii madax qalbi wanaagsan oo runtii ogol naseexada ogol ilaahayna waa u baryeynaa runtii inuu ilaahay la garab galo xil culusna way qaadeen xilka culus kuwa ka soo baxa Allah ka yeelo kuwa ummadan hore u dhiga Allah ka yeelo kuwa cizigi ummadda lahayd qabki ummadda lahayd soo celiya Allah ka yeelo runtii waxa wax lagu wada qaban karaa waa wada jir ayaa wax wada lagu wada qaban karaa madax iyo shacab wada jir ayaa wax wada qaban kara waxa naga dhaxeeyana waa qarankan inaan ilaalino waa waajib diini ah wada jirka iyo midnimada inaan ilaalino waa waajib diini ah aynu wada ilaalino ilaahayna waxaan ka baryayaa wadankan cizigiisa Allah soo celiyo ku noolaada meel walbo aad joogtaan Soomaaliya cizi iyo sharaf ku noolaada wadayna subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambalelka digniinta si markaan muuqaal soo gelina aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook Twitter WhatsApp Google+ iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada